munaasabadan ayaa waxa ay mid isugu jirtay dhiirigelin iyo baraarujin loo sameynayay arday Soomaaliya oo ka qalin jabiyay dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Cape Town waxaana soo agaasimay ururka ardayda Soomaalida ay wax ka barta jaamacadaha ku yaala dalka Koonfur Afrika. goobta lagu qabanayay munaasabada ayaa waxaa soo xaadiray waxgarad aqoon-yahano waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana halkaasi qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay oo khudbado ka jeediyay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin barnaamijkan dhiirigelinta ee loo sameeyay ardadan isla markaana ay diyaar u yihiin dhankooda in ay ka qayb qaataan wax waliba oo sare loogu qaadi karo waxbarashada. Cabdinaasir Cali Caraale gudoomiyaha ururka ardayda Soomaalida ay wax ka barta jaamacadaha ku yaala magaalada Cape Town ayaa sheegay inay xoog saari doonaan sidii loo xoojin lahaa dadka Soomaalida ee ku nool dalka Koonfur Afrika in badankooda ay u weecdaan dhanka waxbarashada. marka hal ugu dhiirado waxbarashada waxaan rajeynaynaa anaga fishinkeena uu yahay hadaan ay ardayda wax barata wadanka wax ka barata in half dadkan South Africa jooga Soomaalida ay iskuulaadka aadaan ay wax bartaan part time aadaan college galaan waxbarasho ay bilaabaan inay waxbarasho ay bilaabaan marka aad u maasay hooyooyinkii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa waxa halkaasi ay ku soo bandhigeen sida ay farxadda ula wadaagayaan caruurtooda oo ka qalin jabiyay dugsiyada sare waxaana goobtaasi ay keeneen ubaxyo iyo hadiyado kale oo fara badan. soo qayb galayaashan salaamaya oo markii ugu horeysay hadlo aad baad mahadsantihiin waxaan hambalyeynaya dhalinyarada gudaha hablo isku jira aad iyo aad baan hambalyeynaya laakiin laba boqol sitaa waxa igu jira nacna ilaahay inuu waxbarashada u macaaneeyo ayna noqdaan kuwii dadkooda diintooda Allah ka dhigo. inta ay socotay munaasabada ayaa waxa halkaasi 9 kamid ah ardaydii qalin jabiyay loo guddoonsiiyay halkaasi shahaadooyin iyo hadiyado kale oo dhiirigelin ah waxaana wajiyadooda aad uga muuqday farxadda ay kala kulmeen bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Cape Town. 2014 aadan uga faraxsanahay sababtoo it's really nice to have the community together and celebrate our academic achievements and that's what's been happening here. First of all, I would like to thank God. After that, I would like to thank Abdurazak and Arale for putting together such an amazing event. This is definitely needed in our community. It highlights a lot of achievements within us, and I would also. ومركي ورئيسي وأرضي نوعنا وصوماليا لوسم يوم برنامج لبو ديريجلين ويسلم مركان كل لبو قاضي يدرب كذا ما دام يكسو بين قيمتي كوادي وحبرشة يسلم مركان الرجال يين يدب باللبان قيبي وسري وحبرشة لك جامعها عبد الله محمود أمين عبد الله قرشي تلفزيون قرن الصوماليا كيف تصل أفريقيا.